wararka naga soo gaaraya deegaanka Ruux ee gobolka Mudug ee maamulka dowlad goboleedka Puntland ayaa waxa ay sheegayaan in halkaas uu ka dhacay dagaal xooggan oo geystay khasaarooyin kala duwan oo isugu jira dhimasho iyo dhaawac. dagaalkan ayaa waxa la soo warinayaa in waxyeelo kala duwan ay ka soo gaartay in ka badan 15 ruux kadib markii halkaasi ku dagaalameen laba beelo walaalo ah kuwaasi oo gudaha deegaanka Ruux ee gobolka Mudug ee maamulka dowlad goboleedka Puntland. wararka ayaa sidoo kale waxay inta ku darayaan in maamulka Puntland halkaasi uu geeyay ciidamo dheeraad ah kuwaasi oo loogu talagalay inay kala dhaxgalaan beelahan walaalaha ay ku wada dagaalamay deegaanka Ruux ee gobolka Mudug ee maamulka dowlad goboleedka Puntland. dhanka kale xaaladda guud ee deegaanka Ruux ee gobolka Mudug ayaa maanta lagu soo waramayaa inay tahay mid degan kadib markii uu dagaal sababay khasaare kala duwan oo isugu jira dhimasho iyo dhaawac uu ku dhaxmaray laba maleeshiya beelood oo wada gudaha deegaanka Ruux ee gobolka Mudug ee maamulka dowlad goboleedka Puntland. cutubyo ka tirsan ciidamada daraawiishta maamulka dowlad goboleedka Puntland oo hogaaminayo General Fuad Xanaano oo ka ambabaxay magaalada Garowe ee caasimadda maamulka dowlad goboleedka Puntland ayaa sida la sheegay gaaray goobta uu dagaalka ka dhacay eegona sidoo kale la sheegay inay kala dhaxgaleen dhinacyadii ku wada dagaalamay deegaanka Ruux ee gobolka Mudug ee maamulka dowlad goboleedka Puntland. ciidamadan ayaana sidoo kale sida la sheegay Puntland ugu talagashay in qayb weyn ay ka qaataan daminta xiisada ka taagan gudaha deegaanka Ruux ee gobolka Mudug ee maamulka dowlad goboleedka Puntland iyadoo ay xusud mudan tahay in maalmihii la soo dhaafay halkaasi uu ka socday dagaal xooggan oo dhaxmaray labadani maleeshiya beelood xilli halkaasi ku sugnaayeen ciidamada booliska maamulka dowlad goboleedka Puntland. dhanka kale mas'uuliyiin ka tirsan maamulka dowlad goboleedka Puntland iyo sidoo kale qaar ka mid ah waxgaradka gobolka Mudug ee maamulka dowlad goboleedka Puntland ayaa sida la sheegay ku howlan sidii xaaladda deegaanka Ruux ee gobolkaasi Mudug ay ugu soo noqon lahayd sida caadiga ah isla markaana loo kala qaadi lahaa maleeshiyaadka ku dagaalamay gudaha deegaankaasi Ruux ee gobolka Mudug ee maamulka Puntland. soo wada duubo xiisadan ayaa waxay ku soo beegmaysaa xilli maalmihii la soo dhaafay deegaanada dhaca gobolka Mudug soo noqnoqonayeen xiisadaha u dhaxeeya beelaha wada halkaasi iyadoo sidoo kale maamulada dowlad goboleedyada Galmudug, Puntland iyo sidoo kale dowladda dhexe federaalka Soomaaliya lagu dhaliilay inay wax ka qaban waayeen xiisadaha colaadeed ee ka aloolsan deegaanada dhaca gobolka Mudug.